واتهاي دينعي قبيدا هدان سعيد حسين سوعلي كورما سعيد وحان ربا سكال يلابين لا يغو صعبيو او وليبا دي الى ايغا سو غاريسنا لو صعبيو الى سو دhoweeya سعيد حسين. I represent the political party that stands on behalf of the half-naked Barbie. I represent the woman of the 21st century, and this woman is everything, except for her dignity. I represent the oppression that's been painted pink, where my body wins and my voice just shrinks. I represent the fact that I don't even have to think. I can manipulate a gentleman with just my flirty wink. I represent the degrading that we the women are facing on our own accord. I'm standing with the so-called feminists that are also fashion magazine whores. I'm marching with the ladies who fight for their rights, except they're slowing me down just a little because I think their jeans are too tight. I represent the rape and the pain, the sliced wrist the prostitutes pay, the boyfriend's choke, his many, many games, sticking my finger down my throat so that I can look okay. All of the tears and all of the cries that came from the hardship of trying to please the guys. I represent the freedom of choosing to be enslaved by this patriotic system that brought us day by day. I represent the hatred I've got for the mirror and the naked girl on the front cover and the cancer from the big breast endeavor. And I represent the advertisement that claims it's all better. I am the revolution of womankind. I'm here to change a system that kept us blind. Take off all your clothes, ladies, and you will live the life. Except there's just a couple of guidelines that you should probably know. You've got to flirt, walk, talk, dress, know exactly where to go. Here, take my copy of Cosmo. 50 things he wants to see in bed, 50 things I think you misread. You're doing something wrong. You're not skinny enough, and your chest is way too small. Plus, you're covering too much. Darling, I really don't see how you can move along without investing in this kind of stuff, because otherwise, how is anybody supposed to validate that ass? Oh, and by the way, show a little more ass. I really do apologize. I know I'm not showing enough skin for you. And I should know better than think this body is mine. I was sent down here to live out the secret of Victoria. I have the freedom to succumb to your fashion magazines and submit myself to your fantasies, but if I choose anything other than that, I guess I'm oppressed. I have the right to wear whatever I want, but only if it has the length of a mini dress. But this shirt here that's to my knees and hides my figure, they tell me to get it off my body. How am I going to be like the pretty air-headed figure? And these colored scarves don't seem to aesthetically cut it. They want to see extensions. They want to see hair dyes. They want to see it gutted. And apparently, my posture is now womanly and my face isn't the prettiest, unfortunately. But I was just wondering if somebody could please tell me who the heck decided that I was ugly? Is my face really not clear enough for you to just look at me? Do I really need to take off my clothes to get a job in any industry? Why aren't my eyes beautiful enough to just be clean instead I have to beat them with bat shit to enhance the green? Call me a fool because I'm not drowning in any man's drool. But I will never get down on my knees to be your pretty in pink commercial footstool. I have sadness for my ladies. Where is the respect? Why have you forgotten your values when instead of wept? They have joked you with this illusion that you're not good enough, but break away because the struggle does not need to last forever. Follow me. I'll take you on this liberated endeavor because I represent the rights of the body and I stand on behalf of the body's liberty. I represent the real woman in a most law form with no need for cosmetics or weight loss reform. And the mainstream, this is to you. You can go ahead and call me a girl who's oppressed, but I assure you, the weight of that institutionalized word will not make me expose my chest. I am already perfect, and I will cover so you don't see it. I am damn happy with my dignity. Hey, Allah ilaahay waxba ka dhacay. Yeah. Waan ogaa markay soo laabato in idinkaga gariirin doonto oo waliba sacab ku waalan doontaan. Inkastoo aan Ingiriiska si fiican u fahmin haddana waa ka helay. Waa tahay. Dhinacii waxaan ku noqonaynaa abaalmarinada. Waxaan idin sheegay soo ma ahayn abaalmarinada caawa aan bixinayno inay ku jiri doonaan aabaha wanaagsan ee sanadka iyo waliba hooyadii wanaagsan ee sanadka iyana. Dabcan barnaamijkan qayb kamida waxa weeye coachkeena ama macalinkeena waxa uu tababaraa J Blue dhalinyaro aad u yaryar oo daad u dhaxayso ilaa 8 ilaa iyo 14 sano jiro. wiilasha uu tababaro waxa mar walba dhinac taagan oo garoon kasta magaalo kasta iyo meel kasta la jooga hooyooyin iyo aabayaal Soomaaliyeed
oo aalaaba waqtigooda u soo hura sidii ilmahoodu ay u noqon lahaayeen ubad hagaagsan isla markaasina ay yididiilada iyo weliba hamiga carruurtoodu hayaan ay ku taageeri lahaayeen haddaba qofkan aan soo dhowaynayo oo aan jeclahay inaad ila soo dhowaysaan waa hooyo Soomaaliyeed isla markaasina carruurteeda dhabarka u ridatay sidii u noqon lahaayeen ilmo hagaagsan waxay degan tahay magaalo ka fog garoomada lagu tababarto ee carruurtu ku tababartaan waxay maalin kasta iyo waqti kasta keentaa garoonka wiilasheeda iyadoo aan ula harin wixii tabar ay hayso waxay mar kasta ka soo muuqataa iyadoo ka fog meesha carruurteedu ay ku tababartaan waliba xilliga loogu talagalay ku timaadaa kadib markii guddigu qiimeeyay hooyooyin fara badan oo sidaasina ay jiraan waxa sanadkan hooyadii sanadka loo gartay hooyada magaceeda la yiraahdo Lucky Hassan Lucky Hassan iyada kaliya ma ahan hooyooyinka tilmaamaha aan sheegay ee carruurtooda mar walba daba jooga hase ahaatee sanadkan iyada ayaan u garanay sidii sanadkii horeba aan hooyo kale ugu garanay ka dambana hooyo kale lagu garan doono haddaba waxaad ila soo dhowaysaan Sagal iyo Safiya oo iyaguna abaalmarintaasi guddoonsiin doona ila soo dhoweeya Lucky Hassan horta inay samayso waa tahay Lucky way xishootay anaa afkeedii ku salaamaya ha loo sacbiyo abaalmarinta guddoon waad mahadsantihiin waxaan idin leeyahay fariista Lucky Safiya iyo waliba Sagal aad baad u mahadsantihiin mar kale ha loo sacbiyo waxa mar walba muhiima in la isku dhiiri geliyo waxa wanaagsan si markaasi aan u helno bulsho dhamaantood wada wanaagsan isla markaasina ku tartama waxa wanaagsan waxyaabaha keenay in abaalmarinada caawa aan bixino ayaa waxay tahay in aan furno jid ah in wanaaga lagu tartamo si markaasi qof kasta oo wanaag sameeya abaalmarin lagu guddoonsiiyo mar kale hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan hal igu sacbiyo anigu waliba hooyo koris aan oo hooyooyinka aad baan u jeclahay markaan yaraana Maxamuud Habartay aan dhigi jiray meelaha qaar Maxamuud Habartay si kala loo ka saamo